بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kelmid ka oranayaa xukuumadan maanta jirta ee madaxweynaha ka yahay waxay bariyahan dambe maalmahan dambe u dambeeyay la soo baxday inay xarig kula kacdo dadka bilmageyda ee oday dhaqameedka sidaad hore u ogeydeen maalin dhaweyto waxaa la xiray gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii tale iyo tawfiiq sida maanta aad warka ku haysaana hadda waxaa xidhan xasan axmed muuse xasan goodaad oo ah xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani. intaas waxay kasoo marka loo eego dhinac waxay ka soo wada jeedaan isla beel keliya oo ah beelaha degan dalkeena hooye Soomaaliland. waxaan leeyahay taasi waa nasiib darro xukuumadana ceeb bay ku tahay qarannimada Soomaaliland ceeb bay ku tahay in oday dhaqameed iyo siyaasiyiinta beel qura ka soo wada jeeda dawladdan maanta ay taarget ka dhigato. waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah xorriyadda u siiso xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani habeen hore gurigiisii lagala baxay taasi oo markaad la xidhiidho ciidamada amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kastood la xidhiidhaan markaad weydiiso aad tidhaahdo xadhigga aad wax ka weydiisaan koran nin walba ku leeyahay anu waxba kuma ogi. marka qof la soo xidho ee ciidamada amnigu yidhaha waxba kuma ogi ee wasiirka arrimaha guduhuna yidhaha waxba kuma ogi waayo cidda waddanka ka talinaysa wax soo xidhaysa waa su-aal aada la isku weydiiyo. waxaan xukuumaddan u sheegaynaa in qarannimadan Soomaaliland dhib badan loo soo maray in xukuumaddan looga fadhiyo inay midayso shacabka reer Soomaaliland inay ka dayso agajugleynta iyo ciidamadan iminka ay xukuumadda la soo baxday inay taasi ku tusayso in ay tahay tii ay ku baaba'day qarankii dawladdii la odhan jiray Soomaaliya. shakhsi guri lagala baxay iyo shakhsi la xidho iyo oday dhaqameed la soo xidho iyo waxaas inayna wax karaamo ah oo ay keenaysa ayna jirin. ciddii laakiin ku gafta qarannimada iyo dawladda meel kaga dhacda xaq bay dawladdu leedahay inay soo qabato laakiin in oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta lagu xidho hebel bay meel ka soo wada jeedaan waa nasiib darro. waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay si degdega xorriyaddii siiso xasan axmed muuse xasan goodaad waa xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani. arrinta aad baan ugu xunnaa waxaan leenahay xukuumadda si degdeg ah xorriyaddeeda u siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi